السلام عليكم وان idin salaama sheekh adiga iyo daadiyaha barnaamijka ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo hawsha aad umada u haysaan inta kadib waxaan codsanayaa inaad ii soo duceysaan inuu ilaahay dambigii aan galay iga cafiyo sheekh waxa jirtay gabar aan saaxiibo ahayn kuna balanay ama ku heshiinay inaan isguursano waxa dhacday maalin ramadaan ayaa tataabasho iyo baashaal aan sameynay laakiin wax galma ah ma aan sameynay inta baashaalka aynu ku guda jirnay ayaa waxa iga yimid shahwada sheekhow soonkaas ma iga jabay haduu jabay maxaa liga rabaa ama واجب إيوه جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أحمد ومرك كوبادي سيدا صحيحة صون كاسي وكبري وكتشوي. وحنا كمدي هيدي وحيابها عنتدي عبيتان كمتك توسكا أنا واجبية. متك تضبنا فليبوينك اللوقات أنا واجبية. شهودنا مدة توسكا قلمضة أنا واجبية. مدة تضبن إسكا كان على الصحيح واجبية. صادرت marka koobaad soonkaasi waa buray oo waa jabay marka labaad uu dambaabay qofku dambiga dhowr nooc kuwayada istaataabasho iyo isla kali noqoshadii istaataabashadii xaraan tahay waa dambi soonkii xurmadiisa iyo sharaftiisa in lagu ciyaaray oo lagu tuntay waa dambi kale dunuubtii kalena inuu ka toobad keeno ilaahay dambi dhaaf weydiisto joojiyo san mar damba samayn go'aansada arintaas كان الله يتيهر يكاد عضي شروط التوبة عادية هيد باللغة بحيه بالله توفيق. waxaan salaamayaa sheekh Shibli iyo dhamaan shaqaalaha Soomaali Cable salaan kadib sheekh oo su'aasheedu waxa ay tahay ayadoo lagu guda jiro bil Ramadaan ayaa waxa dhacday waan suxuurtay kadib ayaa waxaan damcay inta aadaanka salaada fajrka ka dhiman inaan jamiic la sameeyo xaaskayga iyadoo wali ay hawshii dhamaanin ayaan maqlay aadaanka salaada soonkaas ma naga jabay haduu se jabay maxaa kafaara gud ee looga baahan yahay jazaakallahu khayr. alxamdulillah ahmed su'aashu saa'ilku inuu dhamaystira fiicnaydo si su'aashu cadaato طبعا laakiin san dhamaystirin aniga ku qasban inaan dhamaystiro qofku sida isagoo cunta cunaya u banaanayd inuu soo cuno salaad ugu soo gali karto aadaanku ugu dhici karo ba xiriirka gogoleed ee u banaana intaan waagu bariyin isagoo sameynaya dhaxda kaga jira lagu aadaami karaa waa dhici kara way inuu sameynayay dambi maaha ويا وقتي صلاة كهر رئيسي هذا كهر رئيسي هذين كتر هذين قرآن كاب بني يركون يحرر جوجليد يا باشار يحرر جوجليد بسمايان هدي هذا كله أذامي لما مدبون نقنيا هدو سي ودو سير لما يستي صون كواجبيا صون كيس وجبيا haddii uu markiiba joojiyay oo ka boodayna soonkiisu jabi maayo haddii markii aadaanka uu maqlayba uu ka booday hawshiina uu joojiyay halka uu maray uu san dhaafin qof cuntadu afka ku hayay joojiyay oo tufay buu la mid yahay saadarta inta horena way u banaanayd inta aadaanka marka la gaarayna uu joojiyay sida cunto qof joojiyay la mid yahay soonkiisu ma jabayo ma burayo haddii uu sii waday oo dhamaystay uu dambaabay soonkiisina waa jabaya de kafaaradii jimaaca soonka ku jabtayna waa laga doonayaa laba bilood inuu soomo waa waajibkoo laga doonayaa maalintiina uu qadaynayo billahi tawfiiq. السلام عليكم وان idin salaamay salaan kadib waxaan rabaa in aan Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli weydiiyo su'aal ku saabsan arrimaha gogosha waxaan isku wareersanahay xaaskayga markaan damco inaan kala hadlo xaajada sariirta waxay igu jawaabtay war adiga habeen kasta maxaa ku soo taagay waan daalanahay iska sii seexo waa inoo habeen dambe mar walba ma quweysan karo waayo timihii ayaa iga daadanaya ama jijabaya hadaan quweysto war adiga caag miyaad iga dhigatay arrimo caynkaas oo kala ah ee sheekho maxaa ila gudboon aan sameyn karaa jazaakallahu khayr. alxamdulillah axmed waxaan malaynayaa su'aalihii gogosha isu soo xusheen caaw maanta fadhigeena su'aalihii gogosha intaan marayna waa un gogol rag iyo dumar baan malaynaya ala kulli xal su'aashan waa laba qaybood qayb waxa weeye gabadhu waa dambi ninkeedu u baahan oo gogosha ugu baahan ay diido عذر دار لعن أنا دراني ما هي إيو قيان كبدن ما قلت يتمها إيجاد هذا عذر دار بشرع معها وأنا حنوصنا هاي
maalin weeyo soon waajibaan soomanahay dhiiggii caadadaan qabaa waxyaabaa laga garaabi kara weeye sharciga sharcigeenu xataa wuxuu yidhi haddii jiko ay ku jirto dabka u shidan yaho raashin u saaran yahay waa inay hawsheeda hakisaa xuquuqda la isku leeyahay weynankeeda ee kutusi guurkuna asaas waxaa u ah rajo ilmaa laga qabaa laakiin xaaraan in la iskaga dhowrsado nabiguna alay slam waxaa ka sugan inuu yidhi hadday gabadha ninkeedu gogasha uga baahdo ay diido habeenkii ka soo qaad lacanat almalaa'ikatu xataa tarjic aw xataa tusbix ilaahay ka soo laabata ma go-aankii sidaas ahaa ama waa uu ka baryaya lacanad malaa'ig baa ku soconaysa marka waa dembi kabaa'irta kamida gabadhani waxay samaynayso ta labaad ninka maxay la gudboon dee waxaa kula gudboon adiguna haddaad reer u baahan tahay iyadiina ay kari la-dahay dee reer labaad samayso reer labaad samayso intay shahwadan xaraam kula geli lahayd dee guur labaad samee gabadhani haddii iyadu kari weyday iyaduna waa inay ogolaato ay aqbashaa wabilahi towfiiq asalaamu calaykum sheekha xaaskayga ma ogola in aan jameec la sameeyo waxay iga tirsanaysana ma jirto muxuu xukunkeedu noqonayaa mar walbo markay dabeecadahaasi igula dhaqaaqday anna waan iska daayay ee xukunkayga muxuu noqonayaa teeda kale haddii aan xaas kala guursado sideen uga cadaalad fari karaa labadooda jazaaka allahu khayr alxamdulilah dee wax isla soo doontay xaasaskiiyo gogosha garanay mid waan ka soo hadallayoo xaasku inay gogosha diido iyadoon cudurdaar lahayn dembi weyn oo kabaa'ir oo lacanad lagu mutaway su-aasha horeen kaga soo jawaabnay baa ku filan baan u malaynayaa ku noqon maayo markaas halkaasaana ku sheegnay axaadiistii qayb ka mida qaybta labaad xukunkeedu muxuu noqonayaa naashizuu noqonayaa xukunkeedu naashizuu noqonayaa naashizana waxay noqonaysaa mas'alada dambeed weydiisay saa'ilku weydiiyey xukun ka dhalanaya yeelanaysaa markay xukmu nushuuz ama naashizan qof madax adeegtay maamul iyo hadal ogolaansho iyo ka baxday qofkaasi qaybna kuma laha nafaqana kuma laha nafaqa iyo bilna kuma laha qayb iyo habeenna kuma laha saas darteed su-aasha labaad ee haddaan la guursado seen cadaalad u sameeyaa dee haddaad la guursato qayb kuguma laha hadda iyadu diiday ilaa ay ka soo laabato oy tiraahdo raalli ahaw hawshii waan ka noqday waan ogolahay markay tiraahdo mid walba qaybta habeenkeeda ay kugu leedahay inaad cadaalad ugu samayso hadday halkeedii ku adkaysanayso ay halkeedii taagantahay ilaa ay ka soo noqotaay dee qayb iyo habeen iyo jiif kuguma laha waana xukmu naashizada oo dhan baa sidaa noqdo bilahi towfiiq